السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيق وانيما جنالك ايقل السعودين والوقد فرنسيسكا كبرى في صومالي ما إن شاء الله وحني فايدين سيدو الغورة سيدو غريها كميل سوقة عملوا يقان السنتر دا بارجمون فرنسيسكا. شركة دانيتو حالها CHRS طبعا سنة أي جرتا وحاليرا السنتر دا بارجمون السوسيال إل دي فرنسا magaalo walba ayay ku taalaa sida u arkaysiin halkaan Noqmonji way ku taalaa inta soo magaalo ay kaga taalaa Île de France way ku taalaa Île de France waxay ku taalaa 35 37 38 91 سغاشن iyo 3 سغاشي 4 سغاشي 5 inta soo magaalo ay ku taalaa qof kiro bacdeen سغاشي 4 daan ku dhufta ani سغاشي 4 ku dhuftay inta soo magaalo ay ka koobantaa kartay kamid tahay oo magaalo weyn ilaa weer waaxda ilaa misal fo ilaa Villeneuve loo waaba taabanaysa mesela for example ina nito saysa wax u apply gareynaysa bacdeen isi fishmo gratuit telefoonkooda ku soo baxaya تليفون كود إيفيكس كود دارت فيكس إنا ودرتي كدي نمحل تليفون كاسا كوعيسا أما توس بقى وتجيسا إدروس كود وكاسيتو هدي أرتي كارك إنا سي أرتي ماشي أو وكجيا لحافظة يمركا ترينك كدكتي وكلانتي انتي كبحيسا انتي وآليسا وكوسو وضو بحيا إن شاء الله دي وكو شيغيا كارك وكاسيتو بس أقول فرنسا إن شاء الله قفك أو قرآن هيسن كان وحاوي قفك أو قطخات كأ أصلنا ماشي ستاون نساء ومالك لا أيضا لكن قلنا أني تحكي عاوني حتى شقة مش سكر السنساء قفكي أو ربطة كونسي إيكونوميك سوسيال أي فاميليا هذا وبهند دتك فاميلكو عرور تيستان مثلا أو لعقت أو بحث أو كلامته ويل حرير كيان ولو شرحايا قف بكو إيمانس وبجيت كالكو حسابس إن شاء الله وحكا عاونا وحولبو ماشي سيو كورانتا إكسبليكاسيونغا وحيدين أنا قوحا عاونينا دادك ومحالا دومين لوجمو قفك وباهن قرو قفك وباهن عاونينا بروبليم أورجنس هادو هيستو بيرسون أو سيتواسيون أن غرو مركتي وبروبليم وين هيستو فاميلي هدد وجوغين كومباني موبايل هذا أو سوسيال أسيستان سوسيال بكو عاونيسا أو وحول بكو سمينيسو سنتر أبارجموغا ميسيون وحي بو أسيوري أم أزومي لاكي دو لوجمو كعاونيان كومباني موبايل كعاونيان قرئي وحاسا كوهشي فاميلي كوي عاويان قفكي ديفيكولتي والعاونة أيضاً أو لبعتيستو التنوم سوق في كاسكو نقو أو كل جسمالن أو كوجارو عادي يسمالكو يستاجو لواجا وصوبح أنا واكيسو تكون سجال بقولتاتي أفرتي صوبح الواجا نيتو ضد بدن أيام حلرة كفايدستي il existe aujourd'hui différents types maintenant siyaal ka duwan iyo magacyo kale ayaa loo bixiyay marka way caawiyaan dadka waxay caawiyaan booqan tibi public famous way caawinayaan naag uur leh way caawinayaan naag uur laha jirto oo gabdhaha dad Soomaali way jiraan qof uur iska leh guri heesan oo jidadka seexana inta jidka seexan lahaydeen waxaan ii fiican adoo adresskaas aad tagti oo maxaa la yiraahdaa oo weydiisato guri qof turjubaan oo ku waca anaga waqtiga imaanaynay jidad kama seexan jirin maxaa lahaa internetka ka raadsan jirnay shirkadooyin qaabilsan oo cad adinka shirkadooyinka ni imaanayso dhulka dadka qaadayso meelay leeyihiin loo raaco wayna ku qasban yihiin inay guri ay ku siiyaan muhiim ma aha dhulka shaaracaas in la seexdo wasaqdaas seeto bahdilmadaas magac xumadaas adinkana inay fiicneen dadka wadankana yani disturbing ba ku sameynaysiin oo ma fiicna aniga nima judge garanayo laakiin kulli wani faa'iideynaya dadka badan markaan arkay inay u geysay aqoon daro somehow qof caawinaya ma leh Soomaaliga hada tira qof caawi
inuu kaa roonay ama inuu qof kale kii kalena mashquul uu yahay qofna lacag ku weydiistaa laga yaaba duruuftaas inay nii geysay laakiin please isku daya intaada waxaas oo dhan aada sameynin optiono badan ayaa jirto horta kasoo daala soo weydiista shirkadaha soo raadiya waxaaseyta dhan inta information aanay sii taga markaa wax weysiin haa laakiin يعني مقع إلهي بان يقول عرنا ما وينيسين وهليسين مركا إسكا داي جدتك إيو حاسيتو دادك سومالي دا استحلان هدي أتقانين بليز لشير قراي إن توسا وحي عاويان ناك هدي ماشي ناك سيوضان إن شاء الله انتاس وحي يدوعد قلن يدير قلن ناك أورله وعاونيان قف كسو بحي حبسي حتى والعاونة يعني إتميني دادك آن لقادنين أوكالي هذا قف أورله way adag tahay sidii maxaa la gur lagu siiyo because cunuga oonay dadka iscaaj ku sameynayaan marka waa qofkii ka soo bax xabsaniya aaminaya way marka lama rababo waa dadka urgency ugu sii xun xataa way qaadanayaan qof oo santi macal cunugii responsibility-giisa qaadanayaan qofka xabsi ka soo baxana way qaadanayaan iyo otq iyo wax walbo maxaa la tablismo aduqaagiis iyo qof walbo oo maxaa la raadaa ay qaabilaan wixii qaabilaan dadka oo jeenka oo yar ومحلها وحتى إيه سمية عقاق سنتي أبرجمو غانيتو وحوكا عاونا أسنى بلوباخ إن أسوسياسيون بدن باجرو غانيس وحليرا إيمينيتي أما هيومانيتري باليرا دا وددك بالآدن ماذا إيو هيومن رايت كا قابل سموي إنسان ماذا ويكو عاونا يعني إن شاء الله لحريرة أي قف وباحن وإنه لحريرة إن شاء الله وحاجة تقول الله ده أيجانا قاد روج وتخانين بو قاد روج دو فرنسا أيجانا دتكي قابلان إيميس دتكي قابلان أيجانا وكاس ماشي سوق قرن تاعي موفمو إيميس وحاجة تطلع سكوك دي كاتوليك واحد حاجة أيجانا دتكي عاويان ببلاه أيجانا وعاويان إن أكسيون سوسيو ولا الدبارتمون أيضا dadka caawiyaan marka shirkadan bal xariireysi CHRS oo maxaa la raada qof walbo guri aan haysato way siinayaan guriyo ama qof uur leh aato ama qof xabsi ka soo baxa aato ama qof maxaa la raada oo dhibaato sameeyay oo meel la siinay ha ahaado ama haada qof waayeel ama haada nin inaag isqabo ama qof kaligiisa haado qof walbo ay qaabilayaan oo dhibaato walba si walba ay u haysato marka magaalada artisaasa u dalbanaysa sida ani aan soo taabto kale ay magaalo arabti matalan Paris arabta oo ku dhufanaysa sigana inkastoo Paris caasimadda ay tahay لكن قفك إسكا جعل أنا باريس مجعلي because زحمة وجام جام كيس إسكا بدن باريس لكن وحكو في عن تعمير البلوغة كنت جالسة باريس تعملها باريس مركا تابتي إذا أنت مقالة إيه كنت تعمل نوت قدامي كنت على باريس ديزيام كنت على موزيام كوكو يالا marka saas ku dooranaysa insha Allah sababta badan mar walbana saas u idrees kugu soo baxay wixii ku fiican tahay waxay tahay idreeskooda ku soo baxay kan maxay qaabilayaan waxa akay oo waxa way family couple wuxuu ku fiican markiis qof walba waxay qaabilsantaa uma baahan inaa wacdiyo lagu dhaho matalan anaga ma qaabilina qof saas waa ku taabanaysa kuwa waxay qaabilayaan dadka family-ka ah ninka inaagta isqabaan dadka kabalka ah oo lamaanaha ah bay qaabilayaan idreeskooda waa kaasito numberka sida aan sheegay waa uu qarsiya waa hide garisiya laakiin meesha ku dhufaysi numberka hore kaaga soo baxa laakiin aniga waxaan iigu conseil ama iigu talinayaa inaad toos u tagtiin maadaama idreeska uu qoray inaad toos u tagtiin waji marka qof kula kulanti iyo marka maxaa la raada telefoonka waa isku mid ma ah intaas qof oo telefoon appel bay qisuud garanay laakiin marka u tagtiin way ka fiican tahay markaas ay doosiyada iyo qofkii oo idrees garanay bay ku sheegayaan marka waa kaasid hadii aad tiin dad ka balan hadii aad tiin qof kaligiisa hadii aad tiin maaragtay wax walbo waa laga caawinaya marka
siidkan waxa usoo geliyay wax kale ma aha waxay iga tahay wacdigelin aan dadkayga Soomaalideeda walaalahayga wiilashii gabdhaha aan jeclaa dadka Soomaaliya because ani Soomaali ahay ma jecli Soomaali inay maxaa la radaa oo meelaha ay ku bahdilayeen ay ku duruufaysan yihiin maraba Soomaali inay wax laga sheego mareebi inaa tusaale ahaan telefishinkana laga soo deeyo maraba joornaalada in lagu qoro why on lagu qoraa why meelahana laga soo deynaya why maxaa dhacay dadkeena waa in anaga qof kale aqoon leh inuu caawiyo aniga intaasoo kale waxa laga yaabaa inta ka saayo waan caawinaya laakiin intaan garanayno waxaan rabaa codkeyga inaan gaarsiiyo insha Allah on wax walba ee meeshan ka arkaan maanta waxaan iigu soo geliyay sidkaanito waxa weeye inaan ka hortago jidadka la seexanayo dadka ee seexanaya ee Soomaalida because journalistan iga qaadaya sawiro video niga qaadaya markii oo nila soo gelin laguma dhahayo Faarax iyo Cabdi iyo Qadayji iyo Xaawo meeshaas jiifa ma lagu dhahayo Soomaali ayaa lagu dhahaya Soomaali marka Soomaali oo la dhaho it's a fate for all of us maanta kulligeeno taashkuuna soo wada gaaraya markii qofka Soomaaliga wax laga sheego marka anaga waxaan insha Allah ka wacdiinayna inaan adinka jidadka aad seexanin oo association kaasoo dhan ay try gareysiin waa kuwani qaadanayaan meel leeyihiin oo loogu tago ugu taga way qaadanayaan son boqson insha Allah wixii information iyo waxa u sii baahantay Instagram-ka igala soo xiriira Facebook-ga igala soo xiriira Snapchat-ka igala soo xiriira hoos comment igu soo qora codkeyga please qof walba oo Soomaali oo wadada seexanayo sun abaarjimo gaarsiiya waxa kale oo gaarsiisin dhalinyarada lacagta zaidka laga qaadayo oo guryaha degan maxaa la yiraahdaa guryo adinka waxa helaysiin lacag la'aan hadda sharci leediin hadda sharci lahaynbo guryahaas lacag la'aan waaye oo qofka situationkiisu ku xiran yahay hadii aad lacag qaadati wax yar laga qaaday hadda lacag qaadanin lacag la'aan bay ku tahay please share gareeyo center abarjimoodan waxay ku fiican yihiin qofka kaligiis ayuu maxaa la yiraahdaa seexanaya qolka shan qof iyo lix qof man la dejinaa ma isla seexanaysiin please ka hortaga inta walaala oo maanta ka gubanayso Soomaalida jidadka seexanayaan aniga caytan igama ah because jidka la seexdo ma xumo laakiin ma marka wax weysi oo adduunka ka soo daashay laakiin foyer jiro maxaa la yiraahdaa center abarjimo baa jiro logement waxa jira appartement waxa jirta asta social oo dadka caawiyaan kuwa dadku umaana qaadaya sida aan igu sheego boosay leeyahay mar walba inaan igu soo celiyo maro insha Allah jazakallah khair ya ukhti ya aquya please codkeyga dadka dhan gaarsiiya hatta meelahaasito more information hadii u baahan yihiin aniga igala soo xiriiraan insha Allah waxaan soo gelin karayaa soo gelin doonaa shaqooyinka si lagu helo iyo shaqooyinka offerkooda inta shaqo offer aan soo gelinaa insha Allah waxaan soo gelinayaa Facebook-gayga shaqada offerka ee Facebook-gayga iga follow garay sida mar walba shaqada u soo geliya awal hadashin shaqooyinkan waxaan u soo gelinayaa insha Allah leverada ay u kala sareeyaan sida maxaa la yiraahdaa qofkii luqada yaqaan oo kala shaqo u helaya qofkii diploma haysto oo kala shaqo soo ku helaya qofkan luqad iyo diploma ba haysan sidoo shaqada ku helaya situation walbo iyo ay character insha Allah waxaan isku dayaa inaan caawiyo oo intaan ku caawi karo hadda meelo walba xiran yihiin insha Allah waxa la kulmi doonaa dadka insha Allah ni caawi iigan ni sharxi doonaan yani sidii maaragta qofka nolosha ku cusub wadanka markuu soo gal how to build in his life sidoo u build gareeka comment développer comment intégrer en français comment apprentissage de langue français comment faire la stage waxa soo dhan stage-ka apprentishka waxa soo dhan insha Allah baan sharxay haddana waan salaamaya salaanta muslimka igu salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh